halkan taxsiin ugu diraya marxuumka heeradii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka geeriyooday anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland taxsiin tiiraayana halkan ugu diraya runtii waxaad shay gacan ka gardaran gacan ku dhiig leh xukuumadda wax ka go'an iyadoo tixgelinaysa ama fulinaysa heshiisyadii dhex maray labada beelood Saad Yunis iyo Biciido oo ahaa ciddii wax dishay loo dilo xukuumaddu waxay geed sare iyo geed hooseba fuulaysaa sidii ay u soo qaban lahayd gacan ku dhig lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa beesha geeridu ku dhacday oo si geesinimo leh talaabo geesinimo leh qaaday aastay marxuumkii geeriyooday ku baaqdayna inay sugayso oo ka dhur sugayso muxuu ahaa jamhuuriyadda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed muuse diiriye wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland ahna afhayeenka xukuumaddu waxa uu carabka ku adkeeyay in xukuumaddu ay ka go'an tahay in ciddisha loo dilo wasiirku waxa uu sheegay in dawladdu aanay u dul qaadanaynin falalka noocaasi ah ciidamaduna ay ku amran yihiin in cid kasta oo dib geysata gacan bir ah lagu soo dhigo sharcigana la horgeeyo walaalayaal waxaan ballan qaadaynaa inaan hawshaa iyada geed dheer iyo geed gaaban boo fuulo sidii loo soo qaban lahaa oo gacanta loogu dhigi lahaa gacan ku dhig lahaa maxkamad muxuu ahaa cadaalina loo marin lahaa abaalkiisa loo marin lahaa taasaad nagaga sugaysaan waxaan leeyahay hala sabro dawladduna u dul qaadan mayso haddii odayaal geli jireen haddii wax laga ergeyn jiray haddii duqay iyo muxuu ahaa salaadiin la sugi jiray ciidanka qaranka ciidamada qaranku waxa ay ku amran yihiin cid kasta oo dhib geysata inay soo qabato halkuu joogo u tagto dabeedna lagu abaalmariyo taasaa ka go'an taasaad ku dhur sugaysaan taasaad naga warhaynaysaan taasaa la fulinayaa